ciidamadan oo kuwii dhawaan la qaramiyay isla markaana maray dhammaan habraacyada iyo diiwaangelinta ay uga mid noqdeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa loo furay tababar sare loogu qaadayo aqoontooda ciidan tayadooda iyo isku xirnaantooda. رئيسل وزراء حكومة فدرالka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta daafray tababarka ciidamadan dhawaan laga qaramiyay deegaanada Galmudug ee loo diyaarinayo xoreynta deegaanada argagixisadu kaga sugan yihiin dawlad goboleedka Galmudug. رئيسل وزراء حكومة فدرالka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo munaasabada furitaanka tababarka ciidanka ka hadlay ayaa ciidamada kula dardaarmay in tababarka ay uga faa'iideystaan hanaanka ugu haboon si awood buuxda ugu yeeshaan in dalka iyo dadka Soomaaliyeed ay ka xoreeyaan argagixisada dhibaatada ku haysa ee ka hortaagan horumarkooda. wiilashan halkan jooga waa boqolaal kamida kumanaan la diiwaan geliyay ama la diiwaan gelin doono oo loogu talagalay inay difaacaan qarankooda. waxay soo qadimeen naftooda annaguna waxaan hulweynaa qalinkeena iyo qalbiyadeena. wiilasha halkan jooga waxaan leeyahay ma matashaan qabiil, ma matashaan qolo, ma matashaan koox. madaxda halkan joogto ciidamadana waxaan leeyahay ma matashaan gobol, ma matashaan qolo. waxaad matashaan qaranka Soomaaliyeed maadaama laydin qarameeyay. waxaa la rabaa inaad soo celisaan sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed. munaasabada furitaanka tababarka ciidanka dawladdu dhawaan qaramaysay ayaa waxaa goobjoog ka ah xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliya, madaxa fulinta Galmudug, safiirro ka socday qaar ka mid ah dalalka saaxiibka la Soomaaliya, wakiilo ka socday ururada gobolka, xubno ka socday hay'adaha caalamiga kuwa oo dhammaan wax lagu farxo ku tilmaamay qaramaynta ciidankan hore ugu sugnaa deegaanada Galmudug. During your training, a lot of times in your head you are going to think maybe to leave, maybe why you are here. وأنا أدمر دونتين تاوبرك لزوان وحال يكسر دعوانه فكرة محاد ماشان تشوف تا اللي تبرد وأركان دونان يو ما تكتك ماشان. Please listen what somebody older than you can tell you this morning. You choose the right way. Please keep going. فضلا دقيستا ذاتك انك قبرتك بدنو انك واوين ودد دورتين وودد حقيقة او صحة. What Prime Minister is looking for is exactly what we have been trying to achieve all throughout these 12 years that we've been around. waxaan ogaanay waxa ra'iisul wasaaruhu oo raadinayo oo helayna inay tahay waxaan ku raadinayna 12 sano la soo dhaafay oo ku guuleystay ra'iisul wasaaruhu. Your integration is a symbol of the beginnings of reconciliation that are already underway here in Galmudug. And that process of reconciliation now needs to be reinforced and continued to ensure there is a unified view on how to move forward in Galmudug. kudafkan ciidanka oo Galmudug wuxuu hordhac u yahay oo tusaya dib u heshiisiinta dhabta ah oo ka socota Galmudug iyo in uu Galmudug horay u dhaqaaqay. ciidamadan la qaramiyay isla markaana loo furay tababarka ayaa ciidankii isku xilqaamay in cadawga argagixisada Al-Shabaab ay ka xoreeyaan deegaanada Galmudug isla markaana ay ka difaacaan kuwa oo hadda loo diyaarinayo xoreynta deegaanada ay shacabka reer Galmudug ku dhibaateynayaan qawaariijta argagixisada ee Al-Shabaab. Ra'iisul Wasaare Khayre ayaa reer Galmudug iyo dhammaan mas'uuliyiinta uga mahadceliyay doorka ay ka qaateen fududeynta qaramaynta ciidankan, waxaana ciidanka iyo saraakiisha faray inta barkooda ay dadka Soomaaliyeed si wadajir ah ugu shaqeeyaan ayna qayb ka qaataan soo celinta sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed. si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa Sheekh Maxamed Shaakir oo nala soo shaqeeyay halkan na soo gaarsiiyay aan aaminsanahay inuu sii wadi doono.
si gaara waxaan uga mahad celinayaa madaxweyne xaaf isaguna nagala shaqeeyey in reer galmudug ay doortaan madaxda xaq ay u leeyihiin isagu qayb ka ah dib u dhiska dalka taladii galmudug waxay gacanta u soo gashay reer galmudug wiilashiinni naftooday soo qadimeen hooyooyinkiinni farxad ayay leeyihiin shacabka soomaaliyeed meel walbay joogaan oo idin fiirsanayaan adduunyadiioo isla socotana reer galmudugow waa la idiin keenay laga bilaabo maanta saacaddaas qaramaynta ciidamadan ayaa mid xoojinaysa awoodda iyo cududa ciidanka qalabka sida ee Soomaaliyeed oo hadda cagta saaray inay la soo noqdaan awooddii lagu yaqiinay ee ay uga tilmaanayeen dhammaan ciidamada Afrika laguna tilmaami jiray libaaxyadii Afrika. Nasra Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, Dhuuso Mareeb.